cudurka sonkorowga waa cudur dila xubnaha muhiimka ah ee qofka haddaan lala tacaalin ama saaxiib lala noqon. Waxaa jira waxyaabo keenaya inaad saaxiib la noqoto cudurkan oo ay ka mid yihiin inaad isticmaasho cuntooyinka ka qayb qaadanaya in la yareeyo sokorta. Assalaamu calaykum daawade, meel walba aad dunida ka joogto ugu soo dhawow muuqaalkeena maanta oo aan si kooban uga hadlayna 8 cunto ee u roon qofka qaba sonkorowga, qaybtiisa 2. Digirta ama cambuulada waxay ka mid tahay cuntada diirka leh ee aadka ugu fiican dadka qaba sokorta nooca 2 ee aan lala dhalan ama yaraanta ku imaan. Digirta waxay ka kooban tahay waxa ugu badan waa carbohydrate nooca cuntada loo yaqaan, borotiin yar iyo diir ku milmi kara jirka oo wanaajinaya sokorta dhiigga ku jirta heerkeeda inuusan kicin. Sidoo kale waxaa ku jira macdan ay ka mid yihiin potassium iyo magnesium. Qaybaha kala duwan ee digirta sida cambuulada, salbukada iyo beebasheega intuba waxay u wanaagsan yihiin dadka macaanka qaba, sida ay xaqiijisay American Diabetes Association oo ah qaybta Mareykanka u qaabilsan cudurkan macaanka. 6. Ukunta waxay ka mid tahay meelaha ugu badan ee laga helo borotiinka, waxaana lagu qiyaasaa halkii ukun inuu ku jiro borotiin leeg 4 garaam, wayna ka caafimaad badan tahay marka lala barbardhigo cuntooyinka qaar. Waxaa jira baaritaan ay sameeyeen Molecular Nutrition and Food Research sanadii 2018. Waxaa lagu sheegay baaritaanka in dadka maalin kasta cuna ukunta ay yartahay khatarta ay ugu jiraan inay qaadaan cudurka macaanka nooca 2 ee yimaada qofka markuu u weynaado. 7. Malayga. Baarayaasha caafimaadka iyo nafaqooyinka waxay soo jeediyeen in dadka uu dhiigooda ku badan yahay omega-3 fatty acid oo ah nooc ka mid ah dufanka inuu yaryahay caabuqa jirkooda. Sidoo kale waxyaabaha la xiriira cudurka sokorta noociisa 2 iyo dhibaatooyinka culayska ama miisaanka qofka ku yimaada. Baaritaan la xaqiijiyay sanadii 2016 oo lagu qoray joornaal lagu magacaabo Journal Food and Nutrition Research waxaa lagu sheegay in omega-3 fatty acid dadka ay ku badan tahay inay ka caawinayso ka hortagga cudurka ku dhaca wadnaha, caabuqa ku dhaca dhiig karka ama sonkorowga. Salmon waa nooc ka mid ah malayga, waana kan ugu badan ee laga helo dufanka nooca omega-3 fatty acid. Sidoo kale waxaa jira noocyo kale oo afka qalaad lagu dhaho sardanis iyo weliba anchovies, inkastoo aan Soomaali ahaan ahayn, laakiin waa noocyo malayga ka mid ah. Sidaa daraaddeed, malayga ku dadaal nooc kastuu yahay si caafimaadkaaga uu u noqdo mid wanaagsan. 8. Tufaaxa. Waxaa jira xigmad ah in xabad tufaaxa kaa fogeyso dhakhtarka. Sidoo kale cunista tufaaxa waxay hoos u dhigtaa jaaniska inuu kugu dhaco cudurka macaanka qaybtiisa 2 iyo sidoo kale in miisaankaaga uu kordho oo dhibaato uu kugu noqdo. Muuqaalkeena maanta intaas ayuu ku egyahay. Haddaa ka heshay subscribe dheh, gomboleelka furo, like saar, asxaabtaadan la wadaag, lana soco muuqaaladeena kale ee xiga ee aan dhawaan soo gelin doono. Mahadsanid, wabilaahi tawfiiq. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.